بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحاب قالقة يكون حيرتنا يوتيوبك أقوم كرسي أونلاين أكاديمي وحدينا يا معلم وناكسن maanta waxaan baran doonaa insha Allah taala sharabadan loo yaqaano ibijesic oo ah sharabo xanbaabiya ah ama qanajibiya sharabadan waxaa loo isticmaalaa ama lagu daaweeyaa qofka ilmaha yarka ah markay qandho hayso ama markii xanuun uu hayo kale waana laba qayb oo la isku daray waxay ka kooban tahay ibuprofen plus prismol marka labadaas qayb oo la isku daray waxa ka soo baxaya daawo active ah oo qofkii la siiyo si dhaqso leh u bogsanayo marka daawadan loo yaqaan ibijesiga waa daawo markaas waxtarkeeda aad u sareysa hadii ilmaha yarka ay ka caawinayaan dhanka qandhada iyo xanuun haduu jiro si degdeg ah ay falgal ku sameysaa jirka qofkaasna uu caafimaadaya insha Allah marka ibijesiga waa suspension sharabo markaas xasan waaye sharabadana waxay ku imaataa 60 ml sidoo kale marka loo fiiriyo composition-keedana waxay ka kooban tahay waa ibuprofen iyo lagu daray prismol sidoo kale marka loo fiiriyo qaybta ibuprofenka ah waxay leeyahay 100 mg prismolka waa 125 mg dosage laga qaadan karna caruurta 2 ilaa 5 sano jirkan waxaa la siinayaa hal qaado caruurta kalena waxaa la siinayaa laba qaado buuxda sidoo kale sharabadani waa inaan ka fogeysaa caruurta si ay u gaaraan si ay waxyar markaas u soo gaarin wadani waxay soo baxday 2022 waxay dhacaysaa 2025 wax walba oo la isticmaalayna waxaa la iska fiiriyaa deedkeeda aad u mahadsantihiin channelka waxaan noo saartaa subscribe si casharada kuu soo gaaraan insha Allah taala